dad badan baa waxay ku muransan yihiin sidaa u aragtay dowladaha hoose intooda badan degmada doonto waa noqotay degmada Boorama hawsha ugu badan ee aan ku jirnaa waa muran dhul markaanu ka daba tagnayna systemka ayay wax ka khaldan yihiin dadka loola macaamilayay ama sida shaqada loo fulinayo serviceka bulshada siinay haddii noqon waayo mid ay habi ku yihiin ama raadkooda dambe saxa waxay noqon doontaan wax kuwa naga sii dambeeyana ay khaldaan waxaanu doonaynaa inaynu samayno guryaha inaan diiwaangelino aanu samayno number beleed number aan ku dhejino guri walba halka formularka numberkiisa ana soo qorno marka haddii la yiraahdo la soo diiwaangeliyo guri walba cabirka uu leeyahay already miisaaniyada loo qorastay wax ka soo xiroon kara halkaas ka cadda inta hawsood ay ka koobantahay magaaladu iyo cabirada ay kala yihiin midna bulshada way ka bogsanaysaa dhibaatooyinka ka imanaya xagga sharciyada dad baa guri kala iibsanaya gurigaas sharciyada lama waafajinayo lama kala wareejinayo qofkaas iyagoo faylka ku qoran yahay magac kale ayaa jiwanka lagu goynaya ardayda magaciisa saxda ah faylka hadhow marka la isqabsado inay faylkii keena ama haddaan gurigaas marka hore wax kala hayn fayl kii hore nootay u haysa kana nootay u haysa hadhow marka la isqabsado wax lala soo baxay laba nootay taasina wax kala saari karaya maaha wax lagu kala saaraa sharci muranka inta badan dhulka waxa dhaliya waa guryo bilaa sharciya oo aan sharci ahayn waxaan jecelnahay kulley golowna arrintaa uu ka hadlay arrinta aan doonayno inaanu ka gurdeegan ahaan aan dib saxna waxa weeye guri kasta oo bilaa sharciya waxaanu doonaynaa in sharcigiisa loo waafajiyo ha ka fikirina intaasoo sannadood baa lagu lahaa ardayad oo qiimo badan baa lagu saari ama kala wareejinta lacag badan ku noqon 60% baan ku balan qaadaynaa inaanu discount ku samayno oo guryaha bilaa sharciga kala wareejinta aan lahayn jagooyinka bannaan sidoo kale waxaanu go'aan ku gaarnay jagada bannaan qofku markuu intada jooga inuu taayuna ku haysto aan lagu samaynin sharcigii saxda ahaa in la sharciyaysto fadlan cid kasta oo ganacsada ah oo guri jaga ah in jago kule magaalada Boorama waa in aw sharciyaysto muddo 60 maalmood gudahooda haddii 60 maalmood ay gudahooda ku dhaafto wax noqon doontaa qiimaha saxda ah ee lagu leeyahay inaanu ka qaadno dib la yiraahdo waliba ganacna aanu raacno dhulkaasina wuxuu noqon doonaa dhul dib loo bixiyo oo dib loo qaado sababta waxa weeye hadhow murankeedu naga yaraanaya dadka lintooda wado meel baa lagu marmaya hadhow wax laga yaabaa in aad ku kala bixi weydaan waxyaabahana soo maray bay ka mid tahay maanta nagu khasbay inaanu hawshan hawlgalkana samayno waax walba aan samayno sepsonis aan kasii samayno guri walba nambarkiisa la yaqaano oo reer haddaba bulshada reer Boorama waxaan leeyahay hawshan diiwaangelinta guryaha ayaanu doonaynaa inaanu bilowno salaasada ama arbacada haddii la yiraahdo oo bisha ay ku beegan tahay 14 ama 15 bisha January 2014 ayaanu doonaynaa inaanu bilowno oo hawlgalka la sameeyo waxa kaliya oo caaw soo fadhiisay warbixinteeda dambe way dambaysaa in dadkaasi si degdeg ah ay guryaha u sharciyeystaan qof kasta oo gurigiisu bilaa sharci yahay ama jagadiisu bilaa sharci tahay 30 maalmood gudahood waxaanu ka dayn doonaa 60% discount ah marka chance ay ka faa'iideystaan ayaan caawa halkan soo fadhiisay oo bulshada ka Boorama gaarsiiyay Abdullaahi Raahdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.